ambassador Cawil Cali Ducaale waxa uu buugiisa raadraaca taariikh Soomaaliyeed ku faahfaahiyay ugu yaraan 9 kulan oo gaar ah oo hore u dhexmaray isaga iyo Allah u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre. ambassador Cawil Cali Ducaale oo kulamadaasi waqtiyo kala duwan la qaatay Maxamed Siyaad Barre waxa uu ku faahfaahiyay buugiisa waxyaabihii uu kala hadlay iyo nuxurka ujeedooyinka kulamadaasi oo aha kuwa xiiso leh. halkan ayaan idin kula wadaagi doonaa ku soo dhawaada dhowr mowduuc oo ku saabsan 9 kulan. maanta waxaynu eegi doonaa labada kulan ee ugu horeeya ee ay yeesheen ambassador Cawil Cali Ducaale iyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre. ambassador Cawil Cali Ducaale oo arrimahaasi faahfaahinaya waxa uu yidhi kulamadii aan la yeeshay Maxamed Siyaad Barre waxa ugu horeeya kan kulankaygii koowaad. kulamo fara badan ayaan la yeeshay Maxamed Siyaad Barre markii aan danjiraha ahaa iyo intii ka horreysayba. waxaa araggiisa iigu horreysay 4 Sebtembar 1961 waxaanu ahayn 3 sarkaal. 1 Xasan Cabdille Walanwal Xasan Kayd. 2 Cabdillaahi Siciid Caabi oo ahaa cigaal Siidigi. 3 iyo aniga oo ah Cawil Cali Ducaale. waxaanu ka nimid magaalada Hargeysa si aan ula kulanno taliyaha militariga Soomaaliya Generaal Daawud Cabdalle Xirsi. waana markii iigu horreysay ee aan Muqdisho arko. Generaal Daawud ayaanu 8 subaxnimo xafiiskiisa ugu galay. si fiican noomu qaabilin. annaguna hadal uma aanu reeban. waxaan u sheegay in koonfuri wax walba ay qaadatay ragna aanay talo ka dhammaan sidaa daraaddeed aanu arrintayada meel uun saari doono. wuxuu noogu jawaabay waan ka warqabaa in Ingiriiskii uu saraakiil kaga tegay waqooyiga. waxaan rabaa in aynu marka hore isbaranno. markii aanu ka soo baxnay xafiiskii Generaal Daawud Cabdalle Xirsi waxaanu aragnay xafiiska ku xiga oo ay ku qoran tahay Cabo del Stato Maggiore oo aanu isnidhi waa Chief of Staff ama abaanduulaha ciidanka oo isla markaana ahaa taliye xigeenka ciidanka Soomaaliya. waxaanu isku qabannay aynu gallo iyo inaga daaya gelimayne. marba haddii aynu aragnay dareenkii taliyihii guud madax meel ka sarreysa oo la salaaxa ma jirtay. laakiin waxaanu u badannay in aanu balhada gallo xafiiskan. markii aanu gallay waxay ishayadu qabatay nin fadhiya xafiis haawanaya oo aanu xataa miiska dushiisa hal fayl oolin. waxa dul yaalla oo keli ah haashtari sigaar ka buuxo iyo koob yar oo bunka dhammaaday. fadhi ma lahayn. waxa yaalay oo keli ah 3 kursi oo dhaadheer oo aan ku fadhiisannay. aad ayay iiga yaabisay sida xafiiskiisu ahaa. waayo abaanduuluhu waa sarkaalka ugu shaqada badan ciidanka marka laga hadlayo. ninka xafiiska fadhiyaa waa Maxamed Siyaad Barre oo aanu maalintaas isbarannay. waana maalintii araggiisa iigu horreysay. waxaanan ilaawi karin sidii diiranayd ee uu noo qaabilay. markii aanu isku sheegnay in aanu nahay saraakiishii waqooyiga ayuu kursigii ka soo booday oo noo soo wareegay oo uu qof noo salaamay. wuuna fadhiisiiyey. isla markiiba bun kabajiino ah ayuu noo dalbay. hadalkiisii wuxuu ku bilaabay waa dadkii sharafta lahaa, waa dadkii gobta ahaa, waa dadkii israaca keenay. intii aanu Generaal Daawud ku nidhi ayaanu isagana ku nidhi in dowladnimadii koonfuri wada qaadatay waxna aan loo reebin waqooyi ragna aanay tala ka dhammaan inta ay nool yihiin. waxa uu noogu jawaabay Maxamed Siyaad Barre sidan dowladnimadiinnii idinka ayaa halkan keenay. cid idin soo khasabtay ma jirto. sidaas ayayna ku galbatay. ma idinla taliya anigu. Soomaalidu geesiga waxay u yaqaanaan qofka xabad qof wadnaha kaga dhufta. kaasi waa fulay. geesiga dhabta ah waxa weeye qofka marka la ciilayo adkaysan kara. anigaba darajadii aan lahaa waa tan halkan lagala sii jeedo. wuxuu farta markaa ku fiiqayaa xafiiska Generaal Daawud. waxaan ku adkaysanayaa ayuu yidhi Maxamed Siyaad Barre geesinimo igu jirta. haddii aan hadlo waxay ii taraysaa ma jirto. waa la iiga sii darayaa. aniga oo 50 iyo dheeraad jira ayaa adkaysanaya. idinku 20 jir ayaa tihiin oo 50 sano oo dambe ayaad noolaan kartaan. iska suga waxaa idin soo mari doontaa maalin aad cabashadaas wax ka qabataan. diyaaradda calimataan ee berrita Hargeysa u duulaysa raaca aamusa oo afkiina haysta adkaysta shaqadiina si fiican u qabsada hana ka hor dhicina maalintiina. intaas ayuu nagu yidhi Maxamed Siyaad Barre oo maalintaas ahaa baanduulaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. markii aanu ka soo baxnay ayaanu dib u jalleecnay xafiiskiisa iyada oo qofna aanu qof la hadal annaga oo niyadda iska leh war muxuu ahaa qofkan aadka uga duwan saraakiisha kale. intii aanu xafiiskiisa ku jirnay oo 2 saacadood ku dhoweyd cid xafiiskiisa soo gashay may jirin. waxaanu dareennay oo noo muuqatay in uu ahaa nin go'doon ah oo aan cidii wax weydiin oo dagaal ku socdo. sidii aan hore u sheegay koonfurta waxa awoodda lahaa booliska oo militari ma jirin waqtigaasi. waxaanu ogaanay in saraakiisha boolisku ay sidan u kala sarreeyaan. 1 Maxamed Abshir Muuse. 2 Maxamed Siyaad Barre. 3 Cabdalla Sandheere oo ahaa sarkaal carab ah oo markii dambe dayuuradii la dhacday. 4 Daawud Cabdalle Xirsi. 5
maxamed ibraahim liiqliiqato 6 xuseen kulmiye afrax 6daas sarkaal ayaa booliska ugu sarreeyey sida ay u kala sarreeyaanna waa ay u kala sarreeyeen markii xorriyadda la qaatay maxamed abshir muuse ayaa loo magacaabay taliyaha booliska soomaaliyeed dhismaha milatarigana waxaa lagu dhawaaqay 12 abriil 1960 ambasador cawil cali ducaale oo qisadan inoo sii faahfaahinaya waxa uu yidhi cabdilaahi ciise oo dowladdii ismaamul hoosaadka ee xorriyadda ka horreysay ra'iisul wasaare ka ahaa ayaa diiday in 2 sarkaal oo isku beel ah loo magacaabo 2 taliye ee booliska iyo milatariga sidaasi ayaa jagada taliyanimada milatariga lagu dhaafiyey maxamed siyaad barre oo loogu magacaabay daa'uud cabdalle xirsi markii maxamed siyaad barre la kala daruransiiyey 2 taliye ka uu raacayo wuxuu doortay in uu ku-xigeen u noqdo daa'uud cabdalle xirsi oo uu u arkayey in uu uga gacan qabow yahay maxamed abshir muuse maxamed ibraahim liiqliiqato wuxuu raacay maxamed abshir oo uu taliye xigeen u noqday kulankaasi halkaasi ayuu ku soo idlaaday waana kulankaygii koowaad ee na dhex maray aniga iyo maxamed siyaad barre kulankaygii labaad haddii aan gudagalo waxa uu ahaa maalin jimco ah 2 maalmood kadib markii xabsigana laga sii daayey ayaa waardiyihii guriga aan degganaa igu yidhi taliye ku-xigeenkii xoogga dalka ayaa bannaanka kuu taagan waan soo baxay mise waaba maxamed siyaad barre wuu isalaamay wuxuuna igu yidhi innakeen jawhar aan u baxnee waxaa ka dhaadhacsanayd maxamed siyaad barre in aan anigu ahaa shakhsiga saraakiishii kale ku qanciyey inqilaabkii saraakiisha waqooyigu ay ku sameeyeen dowladdii rayidka ahayd waana sababta uu iigu yimid intii aanu jidka ku sii jirnay wuxuu iga waraystay arrimo fara badan oo la xidhiidha inqilaabkayagii arrimahaasi waxaa ka mid ahaa wakhtigee ayaad shiri jirteen habeen mise maalin maxaad isku aamini jirteen ciidanka boolisku ma idinka hor yimid maxaa idin fashilay markii dambe su'aalahaasi ayuu maxamed siyaad barre i weydiiyey intii aanu jidka sii saarnayn wuxuu igu celcelin jiray arrinta booliska boolisku dhinaca koonfur wuxuu ahaa ciidan xooggan oo ka awood badan milatariga aniguna waxaan ugu jawaabay in boolisku aanu marnaba ka hor iman karin ciidan milatari ah waxaa kaloo aan u sheegay in haddii aad ciidan ka qabsato xarunta hubka iyo rasaasta u yaallaan aanay ka duwanayn dadka suuqa jooga oo kale waxaan u sheegay in markii aannu inqilaabka samaynaynay aannu booliska kala wareegnay meeshii hubka uu yaallay jimcayaal kale oo aannu israacnay su'aalaha laftoodii ayuu igu celceliyey maxamed siyaad barre markaas taliye ku-xigeen ayuu ahaa maxamed siyaad barre wuxuuse macluumaadkaas u urursanayey in uu maalin uun inqilaab sameeyo waxaa lagu tilmaami karaa in uu ahaa shakhsi deggan adkaysi badan meel fogna wax ka eega saaxiibtinimo ayaana dhex martay aniga oo cawil cali ducaale ah iyo maxamed siyaad barre waxaanu ii sheegi jiray wax aanu cid kale u sheegin jenaraal daa'uud wuxuu geeriyooday 1965 waxaana ku meel gaadh ahaan xilka u sii hayey ku-xigeenkiisii maxamed siyaad barre iyada oo intaas uu loolan siyaasadeed ka socday cidda taliyaha laga dhigayo aniga oo hargeysa jooga 1966 oo aan keligay ahay ayaan dhegaystay warkii reediyo muqdisho ee 8 fiidnimo xubinta warka ugu horreysa waxay ahayd maxamed siyaad barre oo si rasmi ah loogu magacaabay taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed aniga ayaa isla qoslay waxaan isu geeyey xogtii uu iga urursan jiray markii uu ahaa taliye ku-xigeenka ee ku saabsanayd qabanqaabadii iyo fashilkii inqilaabkayagii waxaa kaloon xusuustay taladii uuna siiyey 4 sebtembar 1961 ee ahayd geesigu waa qofka marka la ciilayo adkaysan kara ee maalintiisa suga waxaan si laxaad leh oo aan shaki ku jirin u dareemay in uu inqilaab samayn doono goor ay noqotaba bishii disembar 1970 isaga oo markaas sannad dalka ka talinayay ayaan maalin si kooban ula kulmay waxa uu ahaa nin xusuus badan oo aan waxba ilaawin wuxuu igu salaamay waa iga degdegteen taladii aan idin siiyeyna waa qaadan weydeen anigu waanigaa weli jooga 1972 ayuu maxamed siyaad barre ii magacaabay danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Uganda saaxiibayaal waxaan intaa ku joojinayaa labadaa kulan ee ugu horreeyey ee uu ambasador cawil cali ducaale sheegay in uu la qaatay allaha u naxariistay madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed siyaad barre isagoo sidoo kale inooga warramay dareenkii muddada dheer ku lamaanaa maxamed siyaad barre ee uu ku doonayey in uu mar uun inqilaab ka sameeyo Soomaaliya oo talada dalka la wareego la soco qaybta xigta iyo kulamada kale ee dhex maray cawil iyo siyaad barre